maamulkayga gobolkayga intaan xukumo aniga aaminsan federaalka madaxweynahana ka soo horjeeda aniga inaan inta madaxweyne noqdo haddana aan dabaqo taas logic ma wayna hadda aniga iska balaaba daan ogolaa inaan madaxweyne noqonayo horta waa taas dadka taa raba marka waxaan qabaa in dastuur cusub la samaysto in dib loo heshiiyo in ciidamada laga heshiiyo habku noqonayo adiga kumbulida Soomaaliya dhan waa fashilan tahay dad dibadda ku jira xalana laga xukumaa Ethiopia soo gashay Kenya jooga waa isku qasannahay marka wax kale ma jiro taas way inta teendho loo haddii xataa teendhada dadka mucaaradka dadka aaminsan iyo Sheekh Shariif iyo madaxda siyaasiyiinta Soomaalida aaminsan in teendho dib loogu laabto sidii waagi hore teendho baa lagu laabanayaa ninbaa soo sharaxaya lacag uu bixinaa dawladda waata uu helayaa dugti meeshiisa ma dhaafiyo fiilo Soomaaliya xalane xogaa lacag oo la siiyay 4 sano doorasho kale saasa wax lagu jirayaa 100 sano qarni hadda already waxaan ku jirnaa 30 sano 20 sano wax been lisay 35 sano 30 kale 60 waa 100 sano generation badan baa dhumay ma filato marka waxaan qabaa in dib Soomaalida ay uga fikirto inagoo degan oo Soomaali beenahay walaala ah la yiraahdo maxay dan inuu ku jirtaa ma inaan kala yaacno oo nin walba gobolkiisa iyo qabiilkiisa uu dawlad ka dhigto hadduu imaaraad la geliyo hadduu la geliyo Yahuudi hadduu la geliyo Iran mise Soomaali dad Soomaali beenahay oo isku mid beenahay xuduudda Soomaaliya ee hadda ayna wada u leenahay miyaan xiranaa ciidanka ma ka heshiinaa dastuur ma qoranaa Soomaalida waa heshiin karaan Soomaalida dad way wax u garan kartaa nin walba oo Soomaaliya maanta gobolku roo magaalo u diigi karaa waa anoo qabsanayn iska diigi karaa taas dib kama jirto laakiin markay siyaasad timaado iyo awood iyo xukun baan is-aaminaadi jirin marka inaan is-aaminaadi la dhiso kalsooni is-aaminaadi oo la reedeedo intaana ka dhaxaysa wadanku waa kan wadankan wada barwaaqo way waa inuu ku filan dadka kaliya ugu filan beeraha jubooyinka iyo shabeelooyinka inuu ku filan iyo Hiiraan ku yaala xoolii baan haysanaa macdantii iyo batroolkii inaan u fikirno jiilkeena sidii uu hogaamin jiilka ina ka dambeeyo bal inaga waa tagnay inay resource-gooda iyo kheyraadkooda ku noolaadaan oo deegaan meeshooda taas oo baa muhiim taanu maxay ku timaadaa inaan wax ku heshiino heshiiska dhaqan galno hatta muslim bay sheegaynaa waa in muslimku waxa ugu weyn waxa kamida inaynu maxaa dhaha ballanta inaan fulino ballan bay moogta ballanta quraanka waa meesha ugu horeysa in qofka muslimka ay ballanta ka soo bixi karo ballanta waxa weeye inaan ku heshiino in madaxweyne samaysano dawlad samaysano cadaalad isku dhaqanno oo diinteena in aaminsanahay ku heshiino heshiiskaas waa rabaas isna aamino marka tiya maqan ilaa taa la helayna nin iska ima kara qoftii ama ha noqodini ama xasan sheekh soo laabto ama farmaajo ha yimaado way ima kara afar waqtiyo way afar sano joogay hadda soo wala qabsanaya marka waxaas waxaan qabaa marka inuu Soomaaliya deenahay in dib la isku yimaado dastuur fiican oo heshiis fiican la dhigto nabadeyn la sameeyo oo dib u heshiisiin nabadeyn la sameeyo dadku nabad weeyaan siyaasiyiintu heshiiyaan qof wanaagsan oo leader leh oo hogaamiye wanaagsan ah oo laga helo dabeecadihii hoggaanka ee ahayd aaminaada go'aan gaarista ixtiraamka waxaas oo dhan nin laga helo doorto waa soo celiyay waa mahadsantiin jazakumullah khair ma yasino meel macquul ah adiya waxa siinaya عبد الناصر يوم اسكو حجنيا اولاد وانا كوري حبيبي كسر waan soo koobaya adoo maasan horta waa ku salaamay colaado waan ku mahadcelinayaa mowduuca aad maaragtay maanta meesha soo dhigtay waad maaragtay soo xulatay runtii aad looga baahan yahay in laga hadlo siyaasiyiinta fashilmay oo ummadan hortaagan 20 sano la soo dhaafay in laga hadlo ummadana loo ifiyo aad ay u wanaagsan tahay lagana hadlo isbeesiyada badan aad looga hadlo waana kaaga mahadcelinayaa adiga iyo dadka kale maaragtay oo barnaamijka kula soo qaban qaabay haddii aan ku socdo tusaalaha maaragtay siyaasiga fashilmay horta uma baahnin inaan meelo kale aadno maanta dawladda hadda joogta ayaan ugu filan tusaale siyaasi fashilmay wadanka wada ogtahay hadda meesha ku jiriyo gacan laguma hayo wadankii siyaadadii ama qarannimadii wadanka gacan laguma hayo tusaalan ku soo qaaday maanta aan kula hadlayo dawladda Imaaraadka waxay diyaarad khaas u soo dirtay nimankii goosadka joogay Soomaaliland iyagoo maaragtay iska indhatiraya dawladnimada Soomaaliya iyo siyaadadii ama sovereignty-ga Soomaaliya marka
siyaasiyiinteena dhammaantooda way fashilameen run idin sheegayna kuwa hadda isku soo sharaxaya musharaxnimo iyo kuwa hadda joogaba way fashilameen waxaan u baahanahay anigoo soo koobaya dad kala iga horeeya iga dambeeya olaado waxaan u baahanahay isbedel dhab ayaa loo baahanyahay isbedel in la helo oo siyaasiyiintan danaystayaasha gaboobay oo maxay ku caanbaxay maartay musuqmaasuqa iyo qabla'aanta iyo sumcad dilka ummadda Soomaaliyeed iyo sharaf dilka in la banado gabi ahaanba meesha laga saaro kuwa hadda musharax isku soo dhigaya kuwa hadda jooga iyo kuwii ka sii horeeyay la helo jiil cusub dhalinyaro ah oo fahansan la jaan qaadaya caalamka la jaan qaadaya iyo hadda waxa ka socda dalkan lagu aamini karo dalkan waa dal weyn walaalow dalkan waa dal aad u baaxad leh wuxuu u baahan yahay madaxweyne aad adag shakhsi ay ka go'an tahay wadaniyad wadankan inuu maaragtay ilaaliyo midnimadiisa qarannimadiisa dadka Soomaaliyeed isku keenaya oo uusan maalinba diyaarad meel u fuuleyn sida hadda kan hadda jooga oo maalinba diyaarad meel u fuuleyn meeshii ka aadi lahaa dibadda uu ka aado gobolada tago diyaaradiisu ku tago deegaan walba uu tago maaragtay sooli sanaag tago awdal tago ilaa dukurooya gida tago baaybakool tago meel walbana gobolada Soomaaliyeed tagaya oo dadka la fariisanaya odayaal dhaqameedka wax garadka ayaan u baahanay uma baahanin coloshis oo shaqeysta oo ummadan dalkan dib u riday oo danaysta oo shaqeysanaya oo ganacsada ah uma baahanin waxa loo baahan yahay wallahi aniga runtii hadii aan fikirkayga kala hadlo wallahi waa niyad maanta la jiifa waayo waxa niyad igu haya musharax la'aan dalka ka jirta fiiri madaxweynayaasha hadda isku soo sharaxay kulligood waa kuwii hore u fashilmay حتى فرماجها ماركتي وكل جريو دمانتوda ku jiriyo iyo kuwa kale maal shariif ku jiriyo damaantooda kuwa masharixiin taada waa wada faashil way kulligooda faashil way annaga waxaan u baahanahay qof cusub oo dadka soo bulshada dhalinyaro ah oo ummadan maaragtay dalkan dadkan ka naxaya wadaniyada ay ka go'an tahay baan u baahanahay uma baahanin siyaasi cusub cidu doona ka soo jeedo qolada doona aado waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed war qabyaalad haday wax tarayso waad aragteen 36 sano ayaan agaagaynayna hadda bilaabayna wax maanta aan ka faa'iideey malahan aan isku aan u midowno sidii aan kursiga ugu celin lahayn aan ugu reebi lahayn siyaasi kasta fashilmay oo danaysta oo qabyaalista oo shaqaysanaya oo faasid ah musuqmaasuq balaayo maaragtay meesha la joogo sidii aan maaragtay ugu hor istaagi lahayn aan u istaagno inaan hal qof hatta walow ha ka imaado oo qabiilada ugu yaryar Soomaaliya ugu yaryar ha ka imaado siyaasi biseel ah oo ummadan danteeda ka shaqeynaya sidii aan maaragtay anaga kursiga loo saari lahaa aan u midowno dalkeena anaga askale sida walaalkay hadda uu sheegay Yaasiin waa unugu faniya kheyraadka dalkeena dahab ba ka buux dalkeena shidaal ba ka buux wax soo saar badan ba maaragtay bad baan leenahay aad u baaxad weyn kaliya waxaan naga maqaynaa anaga isku imaano oo anaga maaragtay qabyaalada xagga iska dhigno oo Soomaali la isku keeno inta aan ka codsanayna mar rabno dhamaan ku hada joogo uma baahnin hal qof uma baahnin Xasan soo noqoshadiisa haduu soo noqdana fiiri wadanka inta dhamaan baa la qaadanaya fiiri Xasan hadda maalin walba waxaan leeyahay waa dharadooy ilaahu ma ka tago waa ma sinti hadaan Xasan ku soo dartay anagu Xasan ma hayno wixii diina garan mayno dadka shacabka Soomaaliyeed kulba ma arkaan ma hayno cadeynteed Kita mau tunggu